dagaalkan oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland ayaa saaka galinkii hore ka qarxay degmada Tukaraq ee gobolka Sool kaasi oo Soomaaliland u suurta gashay inay gudaha u galaan degmada Tukaraq oo halkaas uu yaalay kastama ay cashuuraha ku qaadaan dawladda Puntland lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi maadaama ay wali soo fadhiyaan labada ciidan walow dhawaqa rasaasta laga maqlayo degmada Tukaraq yaageeda gudoomiyaha gobolka Sool ee ugu magacaaban Puntland oo aan khadka taleefanka kula xiriiray wuxuu ii sheegay inay gubeen gaadiid dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Soomaaliland sidoo kalena ciidamadoodu ay ku sugan yihiin deegaanka Godqaboobe oo Tukaraq u jira 15 kiiloomitir wuxuuna wareyska gudoomiyuhu u dhacay sida tan kan waxa weeye waa ka faa'iideysan doonaa nimanka dardarada ku soo doonteen meeshan waa qabsan doonaa laafcaano waxaad noo sheegtay dhankiina wax khasaara ma jiraan oo iyaga qudhooda waxa sheegtay in khasaara soo gaarsiin oo laba gaari ay ka gubteen labada gaarina gubteen maxaad waxa qajinaysaa labada gaari waxa sheegay inta badan dadkii ay baaqeen baadalaalka baaqeen sheegay inay laba gaari ka gubteen daawac fara badan la gudbiyay oo daawac fara badan la soo gaaray magaalada sheegay waxa weeye dawladda ku kala qasabada marka ciidankiinu meesha dagaalku ka dhacay rasmiga ay labada ciidan ay isaga hor yimaadeen waa xagee waa Tukaraq waxa weeye waa soo deegaanka ciidanka inta badan deegaanaya weeye ciidanka Puntland meesha deegaanaya waan gartay marka hadda iyaga gacanta ku haya degmada Tukaraq oo halkaas fadhiisin yahay oo ka sanad kula haydeen Tukaraq yeeda sidii hadda waxa weeye ay gacanta kula hayaan oo waxay joogaan joogaan oo iyaguna laakiin magaalada gudaheeda waxa sheegeen dadku in tiknikooda dhex marayso in ciidamadoodii ay joogaan magaalada gudaheeda waa xilla ciidamada la joogaan wax ciidamada la joogaan meel xoogaa ay jirtaa ay joogaan nimankan Soomaaliland waxaa tiri waxay noo fursad noo siinaysaa weerarkan lagu soo qaaday in aan laafcaanood qabsano marka ma waxaad leedihiin Puntland baa laafcaanood soo weeraraysaa Puntland waa la wareegi doontaa laafcaanood waan gartay sababana waa ka faa'iideysan doontaa maanta arrintan weerarkan maanta la isku soo qaaday idinku hore ma ogeedeen in deegaanka uu ka socdo dhaqdhaqaaq siyaasadeed ama weerar la isku soo qaadayo لكن أنا قلت بدران ده واحد من الدولة يوم بدران يقدر مرة بالعادة وده مثل الميزان. بدون واحد. هروب مصري. عندنا يريد ولا كسيعة. بدون gudoomiye waxa jirtay in idinkiis Puntland Soomaaliland iyo Puntland uu heshiis ka dhaxeeyay xadkuna idiyaha meesha la yiraahdo Tukaraq labadina ciidan idinkuna Tukaraq joogtay iyaguna ay ka sokeeyay maxaa iska bedelay heshiiskaas Tukaraq ma hayne wuxuu ahaa meesha la yiraahdo xoog xadkiisu gudoomiye noo sheegtay in uusan meesha laga Tukaraq dagaal ka dhicin saasna ay ku qabsadeen ciidamada booliska idin joogeen Tukaraq waxaan ku booliis la joogay ee waxa weeye hareeraha ay ka soo mareen booliiskuna wada hadin waan gartay meeshii ciidanka sabiil bay soo weerareen baan ku yiri waxa weeye xoog bay kala kulmeen iyaguna khasaare gaaray dabadna dib ay meeshoodii ugu noqdeen ciidamada Puntland xagee u yahay fadhiisikooda iyagu hadda ciidamada Puntland hadda fadhiisikooda waa fadhiisika ay ugu Soomaaliland waan gartay marka maadaama hadda Tukaraq iyo aagiidu ciidamada Soomaaliland ku sugay idigu talabada qaadaysa maxay tahay wala qaadana ku sheegay waxa aan ku faa'iideysan lahayn aqaarada ugu qabsan waan gartay dadka caddaanka ay soo qaadeen sababta doontaa magaalada hadda ugu dhignaadiyay dhanka Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Sool oo aan la hadlay waxa uu sheegay ka qabsadeen ciidamada Soomaaliland walow uu sheegay in aysan kala kulmin wax iska cabina مختار عبد الجامع ورك وربهنت SBC لا سعانو